kawaanka cusub ee magaalada Burco oo muddo 2 bilood ah xoolaha ay ku qalanayeen hilibleeyda magaalada Burco ayaa hadda waxay qaar ka mid sheegeen hilibleeydaasi inaanay waxba ku qalanaynin kawaankaasi cusub iyagoo ku sababeeyay lacago shirkadda gacanta ku haysa kawaankaasi ee Dayib iyo xukuumaddu ay ku soo rogeen maranu hilibleeyda ku booqanay meesha xoolaha hadda ku qalaan oo ah kawaankii hore laga raray oo hadda la baabiyay ayaa waxay noo sheegeen sida tani aan joognaa xiriirkii hore waxaan u kalifay gigida iyo gudcurka aad arkayso waxaan u kalifay waxaan la geeyay meel qof shicib leeyahay qofkii shicibka maalmo markaan joognay wuxuu nagu yiri waxaan maaquulayn xoolihii dadku aan qaadi karin bixiya neefka 10 kun oo shilin bixiya isma yarag haday ogolaadeen meekay iman lahay waa la ballamay saada ma kaalay baa lagu yiri hadda ma garatay galabtii markii saa lagu yiri habeenkina laga xidhay meeshii sheekada markaa miyaa lagu wada socon waxaan ku darayaa annagu haddii ay dawladdu meel ay leedahay nageen weydo taasoo tii laga guuray la burburiyey ma ilaa iyo inta ay meel ay leedahay noo dhisayso ka tegi mayno ama uu sadhigo ama dhiiga yimaado ama awtaad timaado marka halkan ka waran nadaafadeeda imka ku qalaysan nadaafadda wada kama nadaafad baynaada waa ciida raqaskaas dadkii loo geeyay ayadana baday shubakii la istaga saar magaalada soo noqonaya wax waliba way imanayaan tawaayi dadweynaha wax saa ugu wacan waa mas'uuliyiinta waxaan u sheegaynaa xukuumadda Soomaaliland haddii sidaa wax laga bedeli waayo tii xukuumadda la shaqayn mayso aakhirka da shicibku ka cayaan neefkaygina maadaama markii hore la geeyay meel shicib leeyay imikana halka uu marayo waa markii saddexaad waa habeenkii saddexaad ee uu soo raabo kaco ee dib u soo noqdo ee dib loo celiyo 3 bilood marba meel lagu qalayo la siciyay xukuumadda Soomaaliland waxaan u sheegnaa maanta laga bilaabo halkaas aan ku qalanayna nabad gelisoon wixii ka dhalanaya hadda ka dhashaan oo hawl dul qaadato wixii xanuun iyo nadaafad darro ka dimaada waxa la jidba imika iskala Soomaaliya ku qalaysan shicibaa iskale dad bini'aadan baa ku qashabay yiraahdeen waa ka raali waxa la waayo kuwoodii baa ku jira anigu caruurtooda laga masruufay ku jira marka xukuumadda Soomaaliland waxaan u sheegnaa gobolka Togdheer indhaha laga ridaya waxaan ugu wacan balasaabka iyo maayirka waxaad ka warantaa xaggii hore habeenadu rabash ma ka dhacay maxaad ka waraysaa waxa rabashka ka dhacay wuxuu ahaa mid xun buu ahaa annaga jaaligii 3 habeenimo lagu yaaligini wala dareeriyay oo ay guwaligini guureynaya maxaa ugu wacan marka inamadiiba waa la laayay baa rasaas baa lagu ridayba ayaa dowr bixintu nagu soo gaadhay marka waxaan u sheegaynaa xukuumadda Soomaaliland inaan tan wax xukuumadda gobolka haysata inaan nimanka haysta gobolka ay baabiinayaan oo indha ka ridayaan inaan maxay tahay waan soo lugaysanay ariga rag waa lagu laayay rag waa lagu dilay anaga maxay tahay nimankii weyn waxaynu ariga markaa ku qala lacag bana la weydiiyay lacagtii dumarku ma ogola anaguna lacag uma hayno dabeedna sircay darxumada sirc baab aan ku qalayna marka halka inuu ku nabad gariyo aan halka ku qallo ayaanu doonaynaa ama dawladdu meel nageyso ama meel noo sameeyso ayaanu doonaa ka hadlaynaa kawaankan casriga ee magaalada Burco ayaa qaar ka mid ah hilibleeyda hadda ku qasha kawaankaasi xoolaha ayaa waxay noo sheegeen inay si nadiif ah xoolaha ugu qashaan si fiican ma sha Allah barakallahu baa noogu shaqeeyaa neefka iyagoo wacan oo aan dhib lahayn oo shirin qod xagal noo kina miiska iyo subaxii isagoo noo sarbaano nimaadna aan u soo kacnaa qaar ka mid ah hudheelada waaweyn ee magaalada Burco ayaa soo dhaweeyay kawaankan casriga ee magaalada Burco waa kawaan cusub oo casri ah oo nadiif ah oo gowraciisa iyo qaliinkiisa iyo weelka wax lagu soo qaado iyo wixii soo dhamay farshaxan yihiin oo nadiif yihiin dhinaca kale hoteelada dhigaygana waxaan ugu baaqayaa in ay sidoo kale ay taageeraan oo arkaan waayo meeshii hore iyo meeshan hadda wax lagu soo qalo kawaanka cusub wax isu dhowma meeshii hore way dhacday anaga qudheeda marar noogu soo qalo dayac badan iyo ciid badan iyo hawl badan iyo dhinaca caafimaadka marka la eego caafimaad darro magaalada dhexdeeda ama anaga ha noqoto ama ciidaha macnaha koonayaasha naga xigta ha noqoto waxa soo dhamaanaha hawl iyo dhibaato iyo qaxar iyo ur iyo hawl oo dhan bay soo gaarsiinaysa laakiin kawaankan cusub waa kawaan casriya Mahad Cali Goodir Star TV Burco